بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. maadaama yani khayr badan ay dadku samaynayaan oo maasha allah yani dadka yani taskiyatu nufuus iyo quraan akhris iyo cibaado iyo bil khayr badan iyo tarbiyo intaas ay socoto, nolosheenu si ay nolol wanaagsan u noqoto oo ramadaanka markuu dhammaado yani aynu noqono dad duruus soo qaatay oo noloshoodii go-aan intay soo gaareen wax ka bedelay oo camalkii ay soo kasbadeen ee khayrka ahaa oo meel ugu yaallo oo aan loogala wareegin. waxyaabahaan u baahannahay inaynu duruus ahaan ka qaadano waxaa ka mid ah khayrkan iyo wanaaggan waxaa inoo keenay oo inoola imaaday rasuulkeennii maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam. marka kudayashadiisa oo nolosha habkii u maareeyey iyo habkii u maamulay iyo habkii dadka u tawjiihiyey iyo dhaqankiisu siduu ahaa inaan daba soconno oo aan ku dayanno ayaa loo baahan yahay. marka nabig sal ly slam akhlaaqda wanaagsan kudayashada aan uga dayanayno oo ilaahay uu yidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim, akhlaaq wanaagsan ayaad nabiga ku sugan tahay la yidhi. ilahay wuxuu ina amray inagana inaan daba socono rasuulka sal allahu alيh wasalam oo ilahay wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kathiira. yani waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay dayasho wanaagsan ayaa idinku sugnaatay. nabiga sal lla alay slam si aan ugu dayanno tilmaamihiisa ayaan qaar ka sheegaynaa si tilmaamahaasi ay inoogu noqdaan maclam ama tilmaan aan soo tilmaansano oo aan ku dayanno oo aan daba soconno. haddii meel iftiin uu kaaga baxo iftiinkaasi waa lagu hanuunaa oo waa la dabagalaa ilaa iftiinka looga tago. rasuulka sal ly slm iftiinkaas ayuu ahaa, akhlaaqdiisa iyo si u dhaqmaayana si waxay aad u qiimo badan. marka sida uu ahaa tilmaamihii laga bixiyey ayaan wax ka sheegaynaa si aynu ugu dayanno. alqaadi ciyaad wuxuu leeyahay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ahaa axsana annaasi, dadka midka ugu fiican ayuu ahaa, wa ajwad annaasi, dadka midka ugu deeqsisan ayuu ahaa. xadiidna waa kii uu ahaa ajwad maa yakuunu fii ramadaan, wuxuu aad deeqsi usii ahaa marka ramadaanka la joogo. maxaa yeele bishaasi waa bil khayr badan oo sadaqada la laban laabaayo, qofkii qof afuriya, qofkii suxuurta ka bixiya, qofkii ciidda ilmaha yadka aan heli karin u ciidiya. yani nabiga sal lla alay slam wuxuu ahaa ajwad annaas, dadka midka ugu deeqsisan ayuu ahaa, wa ashjac annaas, ka dadka yani ugu geesisan ayuu ahaa. habeenada ka mid a waxaa madiino ayaa waxaa la maqlay qaylo meel ka soo yeertay. qayladii marka meesha ka soo yeertay, asxaabtii markay qayladii maqleen meeshii qayladu ay ka yeeraysay ayay u yaaceen oo meeshii ayay aadeen. markii meeshii ay aadeen oo balbaxa meeshan ka dhacay iyo si ay u soo ogaadaan ay u aadeen, yaa waxaa ka hor imaaday rasuulka sal allahu alيh wasalam oo intuu meeshii tegey xaaladda ka jira soo arkay inay arrintu iska caadi tahay soo ogaaday, dib u soo laabtay ayaa jidka uga hor imaaday. dadkii hadda gurmadka ahaa ee meesha qaylada ka yartay maxaa ka socda aan soo ogaana u socdayba, rasuulka sal allahu alay slam intuu horay u baxay oo meeshii uu tegey ayuu intuu ka soo laabtay ayuu ka hor yimid dadkii qaylada ku soo baxay ee meesha u socday. taas maxay kutusaysaa geesinimo iyo ihtimaamka nabiga sal ly slam uu siinaayo dadka yani uu rasuulka u yahay oo yani wixii mashaqo ah wixii dhib ku ah inuu ka fuudeeyo oo uu rabo, geesina uu yahay oo meeshan lama aadi kara qaylaha ka soo yarta ayna ahayn. isla markii intuu aaday oo dadkii o dhan uga hormaray ayuu ka soo laabtay, warbixinna ayuu ka siiyey. cali bn abi aalib radi allahu canhu geesinima nabiga asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi kunnaa idaa xamya alba'su, waxaanu ahaan jirnay haddii dagaalku uu kululaado oo dagaalkii la isdhex galo, nataqii birasuuli illaah, rasuulka sal allahu alay wasalam ayaan ku gaban jirnay ama isku ilaalin jirnay. famaa yakuunu axadun, ma jiri jirin qof aqraba ilaa caduwihi minhu, cadowga nabiga sal ly slam yani dagaalka aan kula jirin sayd cali ayaa dhahaya oo geesi oo taqaanaan. yaa nabig sal ly slam wuxuu yihi xaaladu markay nagu adkaato asagaan ku gaban jirnay, yani geesinimo wuxuu ka qabo. dagaalka markii la galana meesha dadka cadowga ay joogaan meesha ugu dhow nabig sal slam asaga ayaa joogi jiray. marka nabig sal slam sidaas ayuu ahaa. jaabir radi allahu canhu asna waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi maa su'ila lama weydiinin annabiya sala allahu calayhi wasalam, nabiga wax lama weydiinin oo faqaala laa uu yidhaahday maya ma dhicin, ma soo marin. nabiga sal allahu alay wasalam intii wax la weydiiyo oo qof wax doona uu yidhahdo wax isii, inuu yidhaahdo maya ma dhicin. maxaa yeel haduu wax haya nabiga sal allahu alay wasalam qof waxaas uu haya ceshanaya muusan ahayne wuu siinayay dadka. sidaasaa nabiga sal ly slam waxaa ka mid ahaa
waxyaabaha maxaasinta iyo akhlaaqda wanaagsana markii waxyiga lagu soo dejiyey oo markii ugu horreysana ay ahayd cabsi uu dareemay oo meeshii uu ka soo laabtay oo u imaaday xaaskiisii khadiija radiallahu canha asagoo leh iduuduuba inay ku tiri kallaa wallaahi maa yukhzika allahu abadan ilaahay marna ku hoojin maayo maxaa yeele qaraabadaad xiriirisaa maxaa yeele waxyaabaha dadku ayna haysanin baad u keentaa martigelin ayaad samaysaa dadka ayaad marti soortaa xaqa ayaad u kaalmaysa ood garab istaagtaa marka qof noocaas akhlaaqdiisu ay tahay marna ma dhibtoonaayo marka tilmaamahaas wanaagsan ee rasuulkeena sal lla ly slm uu ku sifaysnaa in aan ku dayanno oo aan ku sifowno ayaa loo baahan yahay ilaahayna waafajiyo inaan jidkaas aan qaadno kadibna xawdkiisa ilaahay subxaana wa tacala inuu yani nabiga sal slam inuu inaga waraabiyo xawdka nabiga shafaacadiisana ilahay inuu ina geliyo jacaylka aan u qabnana inaan noqonno kuwa ilaahay uu la soo bixiy maalinta qiyaamaha inagoo ka faaidaysanin xadiidkii ahaa almaru maca man axaba yowma alqiyaama qofkuu jecel yahay ayuu maalinta qiyaamaha la yimaadaa nabiga ayaan jecelnahay marka safkiisa allah inagu daro dersigeena intaas ayuu ku ogyahay wsal allahuma calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu